assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Sheekada filimku waxay ka bilaabanaysaa habeenka Bastille ee Paris. Michael Manson oo ah nin Mareykan ah ayaa dhowr qof ka xaday boorsooyinkooda halka haweeney qaawan ay dhex marisay dadka. Marka dambe waxaan ogaanay in haweeneyda iyo Michael ay wada shaqaynayeen. Wuxuu lacag ku siiyaa inay dareenka dadka ka jeediso, kadibna waxay raacayaan tareenka. Wuxuu arkay in booliisku ay soo galeen, kadibna wuxuu ka baxayaa tareenka isagoo aan waxba u sheegin haweeneyda. Marka xigta waxaan aragnaa wakiilka CIA Sean Bryant kaasoo su'aalo laga weydiiyey kadib markii uu fashilmay howlgal uu ka shaqaynayay. Muuqaalku wuxuu u wareegayaa nin gelinaya walxaha qarxa gudaha bombale. Wuxuu u sheegay saaxiibtii Zoe inay bombalaha geliso xafiiska ku yaala xarunta xisbiga wadaniga ee Faransiiska. Xafiisku waa inuu ahaadaa mid faaruq ah, marka qaraxa wuxuu kaliya noqon doonaa fariin la diray. Dhanka kale, Michael wuxuu ka iibinayaa alaabtii uu soo xaday macaamiilkiisa. Waqtigaas Zoe waxay isu diyaarinaysaa inay dhammaystirto hawsheeda oo waxay bombalaha gelisay boorsada gacanta. Xafiiskii ayay timid oo gudaha u gashay. Shandada ayay dhulka kaga soo tegaysaa, waxayna dareentay dadka qaarkii oo soo gelaya. Waxayna go'aansatay inay qaadato boorsada oo ay baxdo. Michael banaanka ayuu taagan yahay oo eegaya iyadoo si kaxsan ula hadlaysa saaxiibkeed, isagoo u malaynaya inay tahay shay qaali ah. Michael wuxuu xaday boorsadii intay mashquulsanayd. saaxiibkeed wuxuu gaari la saaran yahay niman calooshood u shaqaystayaal ah. Waxay ka walaacsan yihiin in qorshuhu uusan socon, laakiin wuxuu u xaqiijinayaa inuu xalin doono wax walba. Michael waxa uu eegay boorsada oo uu ku arkay bombale, laakiin waxba kama oga inuu qarax ku jiro. Kadib Zoe saaxiibkeed ayaa soo wacay telefoonkeeda, Michael ayaana ka qabtay. Wuxuu u haystaa inay tahay hadiyad oo uu iska tuuray boorsadii. Wax yar kadib bamkii ayaa qarxay, waxaana ku dhintay 4 qof. Michael wuxuu eegay hareeraha wuuna cararay. dhacdada kadib wasiirka arrimaha guduhu wuxuu u xaqiijinayaa saxafiyiinta iyo dadweynaha in maamulku uu soo qaban doono argagixisada. Kadib waxaan ogaanay in kaamarada ammaanku ay u suurto gashay inay sawirto wejiga Michael. Kaamarooyinka kale ee ammaanka ayaa xaqiijiyey in Michael uu ahaa qofkii qarxiyey bamka. Mas'uuliyiinta Faransiiska ayaa ku tilmaamay inuu yahay argagixiso, waxaana la hoosgeeyey CIA-da gudaha Paris. maalintii xigtay Michael wuxuu ogaaday inay raadinayeen mas'uuliyiinta Faransiiska, waana inuu baxsadaa sida ugu dhaqsaha badan. Markii wakiilka CIA Sean Bryant uu ogaaday Michael, wuxuu ku degdegay inuu raadiyo. Tan iyo markii ay heleen telefoonkiisa, Sean iyo kooxdiisu waxay si fudud u heli karaan guriga Michael. Michael wuxuu qaatay dhammaan lacagta oo wuxuu isu diyaarinayaa inuu baxo, laakiin wuxuu arkay Sean, wuxuuna go'aansaday inuu ka baxsado daaqada. Sean wuxuu soo galay aqalkiisa, wuxuuna ku daba ordayaa saqafka sare ee guryaha. Kadib markuu soo maray dhismayaal dhowr ah, wuxuu galayaa guri, laakiin Sean ayaa ku guulaysanaya inuu joojiyo isaga in yar. Si kastaba ha ahaatee, milkiilaha guriga ayaa soo dhex galay, wuxuuna ku guulaystay inuu baxsado. Sean wuxuu dib u bilaabay orodkii saqafka sare, isagoo yimid suuq weyn. Michael ayaa soo baxay oo gashaday jaakad uu soo xaday. Sean wuxuu sidoo kale yimid dibadda oo bilaabay inuu hareeraha eego. Michael wuxuu xaday mooto, wuxuuna ku dhow yahay inuu baxsado, laakiin Sean ayaa qabtay. Mar kale iyo Zoe waxay ku soo noqotay guriga saaxiibkeed oo waxay qiratay in qof ka xaday boorsada. Burcadii waxay waceen ninkii, waxayna u sheegeen inuu xiro Zoe sababtoo ah waxay rabaan inay la hadlaan. Markuu arkay inay imanayaan, wuxuu u sheegay inay rabaan inay dilaan, wuxuuna u sheegay inay ka cararto Paris. Dhanka kale, Sean wuxuu Michael geeyey qolka su'aalaha ee qarsoodiga ah, kaasoo sheegay inaanu wax fikrada ka haysan in shandadii uu xaday uu bam ku jiray. Wuxuu sidoo kale daaha ka qaaday magaca Zoe, isagoo sheegay in nin gaara uu soo wacay telefoonkeeda. Wuxuu sheegay inuu yahay tuug xirfadle ah, waxaana lagu xujaynayaa inuu xado boorsada Sean. Wakiilka CIA wuu yaabay laakiin ma muujin. Markuu Michael ku soo noqday kursigii, wuxuu xaday mididii miiska saarnayd. Meelo kale, niman dablaya ayaa magaalada ka raadinaya Zoe si ay u dilaan, maadaama ay hadda tahay markhaati wax badan og. Kooxda ayaa dabagelaysa telefoonkeeda, waxayna yimaadeen qolka su'aalaha ee sirta ah. Sean wuu tegayaa si uu u eego kaamaradaha ammaanka, isla markaas Michael ayaa isticmaalaya midida si uu isu xoreeyo. Sean wuxuu salaamayaa dablayda, kuwaasoo been u sheegay inay Zoe alaab u keeneen. Wuxuu sheegay inay haystaan ciwaan khaldan, oo markii ay damceen inay baxaan nimankii burcadda ahaa waxay arkeen Michael. Sean wuxuu la dagaalamayaa dablayda, halka Michael uu baxsaday. Si wada jira tuugadii ayaa u suurto gashay inay garaacaan kadibna cararaan. Wakiilka CIA ayaa helay macmiilka Michael oo wax ka weydiiyey isaga. Sean oo gaari saaran ayaa ku wargelinaya asxaabtiisa in Michael uu baxsaday. Wakiilka kale ee CIA-da wuxuu leeyahay waa inaynu helnaa Michael ka hor intaysan mas'uuliyiinta Faransiiska ogaanin inay ka shaqaynayaan dhulkooda. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa la qadeeyey sarkaalad ka tirsan CIA-da, kaasoo ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay qabashada Michael si ay u kasbadaan kalsoonida shacabka Faransiiska. Dhanka kale, haddii ay tahay CIA-da midda soo qabanaysa, markaa mas'uuliyiinta Faransiiska waxay u muuqan doonaan kuwa xun. Isla markaas, Rafi, hogaamiyaha dablayda, ayaa qorsheynaya inuu qaado weerar kale oo argagixiso ah. Waxay ka wada hadlayaan qorshaha. Haddii kooxdu ay ku dhigto qorshaha oo ay faafiso khalkhalka, waxay heli doonaan 500 milyan oo lacag ah oo ay ka helayaan bangiga.
marka xigta wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday inuu yahay hogaamiyaha kooxda calooshood u shaqaystayaasha. Marka wuxuu calooshood u shaqaystayaashii lacag ku siinayaa inay iska dhigaan inay dadka masjidka ka badbaadinayaan bam ay rakibeen si ay u helaan kalsoonida dadka Faransiiska. Taasi waxay keentay in dadkii masjidka ku sugnaa lagu eedeeyo inay yihiin kuwii wax qarxiyay inkastoo aysan waxba galabsan. Qorshuhu wuu shaqeeyay oo dhammaan saxaafaddu waxay ka hadlaysaa dhacdadan. Michael ayaana weli ah tuhmanaha lambarka koowaad, halka Michael uu aadayo macmiilkiisa oo uu u arko inuu yahay aabihiis. Wuxuu ku dhaartay inaanu wax luga ku lahayn bambada. Ninkii waxa uu geeyay qol isagoo u sheegay inuu sugo. Kaaliyihiisa ayaa wacay booliiska. Kooxda calooshood u shaqaystayaasha ee Rafi ayaa u soo socda inay qabtaan. Michael wuxuu gartay in dhammaan albaabada qolka ay qufulan yihiin, wuxuuna banaanka ka arkay ciidamada. wuxuu gidaarka ka helay dalool wuuna ka baxsaday. Marka calooshood u shaqaystayaasha ay waayeen waxay si xun u garaaceen macmiilkiisa iyagoo u malaynaya inuu been u sheegay. Rafi wuxuu ogaaday in kursigu qarinayo god oo wuxuu ogaaday in Michael uu cararayo. Wax yar kadib Michael ayaa soo baxay oo shiishahan ayaa sugaya ogolaanshaha inuu toogto, laakiin nasiib wanaagsan ayaa ku soo qaaday baabuurkiisa. Rafi iyo kooxdiisa waxay fuuleen baabuurtoodii wayna ka daba tageen. Wakiilka CIA wuxuu Michael geeyay guriga badbaadada ah ee Zoe saaxiibkeed Paul, kaas oo la nool asxaabtiisa. Paul wuu diiday inuu soo geliyo Zoe iyada iyo saaxiibkeed waxay ku carareen mootooyin kadib markay gubeen gaariga Sen. Michael iyo Sen ayaa lagu qasbay inay qof kale gaarigiisa xadaan oo ay gaaraan baarka uu Paul ka shaqeeyo. Michael ayaa soo galay baarkii oo ka kiciyay iska hor imaad isagoo qof ka xaday telefoonka gacanta oo uu qof kale jeebka gashaday. Kadib wuxuu xaday waraaqaha Paul waxayna ogaadeen ciwaanka gurigiisa, halkaas oo ay Zoe sidoo kale degan tahay. Intay u sii socdeen hoyga Paul, Rafi ayaa loo soo sheegay meesha ay ku sugan yihiin, waxayna damceen inay soo qabtaan. Markay guriga soo galaan, Zoe waxay qabsanaysaa Michael iyadoo midida cunaha kaga haysa. Brian ayaa hubka ka dhigaya wuxuuna su'aal ka weydiiyay Zoe meesha uu yaalo bamka xiga iyo cidda samaysay. Waxay daaha ka qaaday in ninka ay garanaysay lagu magacaabo Jane ayna xiriir la leedahay, waxayna siisay ciwaankiisa. Intay u sii socdeen Jane, saddexdooda waxaa ku soo biiraya Rafi iyo gacanyarayaashiisa, kuwaasoo ka digay baabuurka oo ugu hanjabay qoryo. Sen wuxuu qof walba u sheegayaa inuu madaxa hoos u dhigo oo uu gaariga kaxaynaya, halka Rafi uu rasaaseeyay baabuurka. Dhanka kale, xaaladda Paris ayaa ka sii daraysa iyadoo ay sii kordhayaan tirada mucaaradka ka soo horjeeda xisbiga wadaniga. Sidaas darteed, wasiirka arrimaha gudaha ayaa amar ku bixiyay in la kordhiyo heerka feejignaanta. Sen iyo labadoodaba waxay yimaadeen hoyga Jane, laakiin waxay ogaadeen inuu isagu isdeldelay. Zoe way ilmaysay, Michael ayaana kaxeeyay. Sen wuxuu helay aqoonsigiisa isagoo daaha ka qaaday in Jane uu ahaa sarkaal booliis ah oo qarsoon. Wuxuu wacay saaxiibtiis Karen oo CIA ka tirsan, wuxuuna ku wargeliyay in rabshadihii magaalada ka dhacay ay cid soo abaabushay, waxayna u soo diraysaa qof soo qaada iyaga. Karen ayaa la kulantay wasiirka arrimaha gudaha, waxayna ku wargelisay inay ahaayeen mas'uuliyiinta Faransiiska kuwii diyaariyay bamkaas, iyadoo aan ogeyn inuu dhab ahaantii isaga yahay maskaxdii ka dambeysay. Karen ayaa u sheegtay wax ku saabsan Sen, Michael iyo Zoe, waxayna weydiisatay inuu badbaadiyo. Isagoo og in Karen ay hadda tahay markhaati ayuu ku toogtay meel bannaan, wuxuuna ku amray Rafi inuu tago oo uu soo qabto Sen, Michael iyo Zoe. Saddexda qof ayaa sugaya gaarigii ay Karen soo dirtay, iyagoo u malaynaya inay hadda bad qabaan. Si kastaba ha ahaatee, intii ay jidka ku jireen ayaa Zoe waxay ogaatay in mid ka mid ah labada qof ee ku dhex jira baabuurka uu yahay mid ka mid ah gacanyarayaashii Rafi. Markay dablaydu damcaan inay dilaan, dagaal ayaa dhacaya. Sen wuxuu ku guulaystay inuu dilo qof walba, waxayna xadayaan gaariga. Meel kale, nimanka Rafi waxay isu diyaarinayaan inay weerar ku qaadaan bangiga. Sen oo ay weheliyaan Michael iyo Zoe ayaa halkaas aaday. Sen wuxuu ogaaday sababta uu wasiirka arrimaha guduhu u dilay Karen oo uu ogaaday qorshihiisii u harsanaa. Sen ayaa iska dhigaya nin booliis ah si uu u galo bangiga marka ay saddexdaasi yimaadaan. Markii calooshood shaqaystayaasha ay joojiyaan kaamaradaha amniga oo ay bilaabeen inay bangiga dhacaan, Sen ayaa dilaya 2 nin oo gacanyarayaal ah, wuxuuna galayaa dhismaha. Rafi wuxuu 500 milyan ku wareejinaya hard drive-ka ku dhex jira khasnada. Sen wuxuu soo galay bangiga oo bilaabay inuu toogto burcadda, kuwaasoo isku dayay inay joojiyaan. Markay Michael iyo Zoe ay gartaan in Sen uu u baahan yahay caawimaad, waxay ka soo baxayaan gaariga oo ay u dhex marayaan booliiska iyo mudaharaadayaasha iyagoo abuuraya fawdo. Dibadbaxayaashu waxay jabiyeen albaabkii bangiga oo gudaha u galeen. Dhanka kale, Sen wuxuu maamulayaa inuu baabi'iyo dhammaan calooshood u shaqaystayaashii ku sugnaa hoolka weyn, wuxuuna gelayaa qolka. Wuxuu iska hor imaad la galay Rafi iyo gacan ku dhiglihii ku jiray qasnada, isagoo dilaya gacan yaraha laakiin u ogolaaday Rafi inuu baxsado. Wasiirkii arrimaha gudaha markuu ogaaday in raggiisii laga batay ayuu wacay Rafi si uu u joojiyo xawilaadda lacagta, laakiin markii dambe wuu diiday. Taasina waxay keentay in wasiirku diido inuu sii taageero. Rafina wuxuu ugu hanjabay inuu ku dili doono weerarkooda haddii la qabto. Rafi wuxuu ka soo baxayaa khasnada, Michaelna wuxuu xadayaa hard drive-ka amarka Sen. Markii uu ogaaday in hard drive-ka laga xaday ayuu Rafi afduubtay Zoe oo ugu hanjabay inuu dili doono.
Sen ayaa dhulka ku tuuray Michael markuu Rafi diyaar u noqday inuu toogto, laakiin wakiilada ayaa rasaas ku furay Rafi iyagoo ku dilay amarka wasiirka arrimaha gudaha. Michael ayaa ka cararay bangiga halka Sen uu ka soo kabanayo dhaawacii rasaasta. Michael ayaa markaa kula kulmay wasiirka arrimaha gudaha kaniisadda, halkaasoo uu ka dalbaday baasaboor, tikidhka diyaaradaha ee Brazil iyo $100,000 oo cadaan ah oo uu kaga bedelanayo hard drive-ka. Markii uu hard drive-ka u dhiibay wasiirka, waxay labadooduba u sii gudbeen tunnel-ka, halkaasoo ay taalo lacag cadaan ah oo lagu sheegay $100,000. Wasiirka ayaa bastoolad ku taagay Michael, balse Sen ayaa yimid oo bastoolad ku taagay wasiirka oo toogtay Michael. Markii wakiiladii kale ay yimaadeen oo ay xireen wasiirka, Michael ayaa istaagay isagoo daaha ka qaaday inuu been abuur ka sameeyay dhimashadiisa, isagoo xiran jaakad aan xabadu karin. Ugu dambeyntii Michael wuxuu Sen ku wareejinayaa hard drive-ka. muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.